laba qodob oo yar yar baan ku gabagabeynaya oo aniga khusay qodobka koobaad ummadda muslimka ee Soomaaliyeed dhalinyaradeedii uqaasheedii culumadeedii indhergaradkeedii aad iyo aad ii garab istaagtay aflagaadadii xamar ka soo yeedhay baan aad ugu mahadnaqaaya man laa yashkuru الnaasa laa yashkuru illaah inaan si baan isu difaaco anugu aan faagtaan rabay laakiin waad igaga filaateen khayr allah idin siiyo inta fadhida iyo inta maqanba waxaa muslim lagu yahay in la isku hiiliyo xilliga hiila la kala mudan yahay marka bulshada hadday fadhiday iyo inta maqanba hadalkii uu gaari doono waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo sidaa aad ii difaacdeen haddaan khaldamana ii qabta sidaa aad ii difaacdeen haddaan ugu khaldamana ii qabta nin walbo lagu xadgudbana sidaad ii difaacdeen u difaaca ummaddu intaasoo kale haddii laga helo wax badan baa inoo hagaagi lahaa taasi marka waa mahadnaq iyo inaan dhaho allah idin barakeeyo una duceeyo dadkii cirdigayga lagu xadgudbay i garab istaagay si wanaagsan bulshada intii qaybeeda kala duwan rag iyo dumarba sagiir iyo kabiir caalim iyo caamaba waad mahadsantihiin nin baa laga sheegay nimaan ciilay baa i caaya nimanka waxa muuqanaysa inaan ciilay laakiin anoo ma qasdin intaasaan ku dhaafahayaa wixii kale idinkaa qaatay qodobka labaad ee ii raaca hawsha ka soo korodhay musabbixi iyo dhulbaante anu wax ma marqarshee markay shinkeedu gaadho diiniyan baan oga hadli doonaa